الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلوات ربي وسلام عليه يوحو ليهي صدح الرمود أيام كل داران بنبي صلى الله عليه وسلم. صدح الرمود وان كل داران أيام بمعنى والله با شكينكم أتشروا. أرنت كوبادي وحو النبي صلى الله عليه وسلم عد إسلام كدحديث سامي كله إلهي كدق مايو سيدي كوا أن سامي لهينو كله لصمي مايو كوا أن إسلام كدحديث سامي كلهين. إسلام كسامي يدي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصدح والصلاة هي الصونك هي الزكاة. قضب كاللواد النبي كردارتي صلى الله عليه وسلم وحوي الله تبارك وتعالى أدون مديسة كمدة أدون مدى أدون كدحديسة ولايدي سمسيو jacaylkiisa iyo hiiladiisa iyo garab istaagiisa ma siiyo ilaa hadduu siiyo uu arintaa helo adduunka uu ku helo adoonku aakhira ilaahay cid kale u xil saari maayo, cid kale taladiisa u dhiibi maayo, isaga gacanta ku haynaya. qodobka saddexaad ee nabigeenu ku dhaartay waxa weeye salawaatu rabbi wa salaamu calayh, ruux dad ma jeclaado إلا الله وحو يلا تبارك وتعالى دتك على جيرانكود. مد أفراد ونبي كودر صلى الله عليه وسلم وحو يلي أرين أفرادنا هدان كودارته وحن رجينا يا إنا نندم بابين. وحو يلي أضون إلهي أدونك ما أسطره إلا هدو أدونك كو أسطره آخرا وكو أسطره. أفر أرمضو آدو قيمة بضوين الله عدالة ديس waxay keenaysaa ruux walba caqiidadiisii iyo camalkiisii wuxuu ahaa in lagu abaalmariyo. Allahna tabaaraka wa tacaala dadka simi maayo kii xumaa iyo kii fiicnaa in hal laba kafadoodoo siman la wada saaro. cadaaladda rabbi baa diiday. ruux islaamka dhexdiisa saami ku leh oo dadaalay oo khayr iyo wanaag la yimid iyo midaan islaamka dhexdiisa saami ku lahayn ilaahay simi maayo. taasina cadaaladday ka fog tahay. afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin, warma muslimiinta iyo mujrimiintaanu isku mid ka dhigaynaa. maa lakum kayfa taxkumuuna, seed wax u xukumaysaan, xukunkiinu see u yaalla? ma labadaasaa la simi karaa oo isku mid laga dhigi karaa? jawaabtu waa maya. allah tabaaraka wa tacaala islaamka dhexdiisa yaa saami ku leh oo karaamo iyo qiimo ku leh waa ruuxa waajibaadka shariicada hagaajiya. sheegadka ma aha islaamnimada uun iska sheegta. laa yusalli walaa yasuumu walaa yuzakii walaa yuaddi alwaajibaat. soomi maayo, salaad isma yaqaanaan, sako xoolihiisa kama bixiyo. kaasi islaamka dhexdiisa wax saamiya kuma laha. isaga iyo ruuxii intaaba hagaajiyo salaadiisa hagaajiyey oo bishiisa ramadaan si saaniyo fiican u soomay oo xoolihiisa zakada waajibka ka bixiyay, sida daraadeedna islaamka dhexdiisa saami qiimo leh ku leh, isaga iyo kaas kale ilaahay marna simi maayo, isku midna ka dhig maayo rabbi tabaaraka wa tacaala. cid saami leh saamigiisu leeyahay. ninkii aan saami lahayn oo soo shaqaysanina rabbi tabaaraka wa tacaala waxba siin maayo, maxaa yeelay muusan soo beeranin mana soo shaqaysanin. islaamku marka waa camal, waa caqiidiya camal wada socdo wey. ma aha keliyata wax lagu abtirsado uun waan ku dhashay waana ku abtirsadaa muslim baan ahay bas maya. islaamku waa caqiido wax la rumeeyo iyo camal iyo dhaqan wada socdo wey. laysa aliimaanu bitamani wala bitaxalli walakin ma waqara fi lqalbi wasadaqahu alcamal. waa qalbiga iyo xubnihii iyo dhaqankii iyo noloshaadii inay ilaahay awaamirtiisa qaadato wixii laga reebeen aad ka hadho
markaasaad islaamka dhexdiisa saami ku leedahay haddii kale waxba ma lihid taa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ku dhaartay qodobka labaadii waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala hadduu ku jeclaado adduunka dhexdiisa taladaada iyo arrintaadana asagu qabto garab kuu noqdo iyo hiilo kuu noqdo aakhare markaad tagto cid kale kugu wareejin maayo isagii adduunka weliga kuu ahaa ayaa aakharana weli kuu ah wakadalika malaa'ikatuhu allah tabaaraka wa tacaala malaa'igtiisa uu soo diray adduunka dad bay awliye u yihiin aakhare markay tagaanna isla iyagii bay awliye u yihiin naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati addunya wa fi alaakhira adduunka annagaa awliye idiin ahayn aakharana annagaa idinla joogna waa allah tabaaraka wa tacaala ma dhici karto addoonkiisa inuu adduunka ku jeclaado oo wilaayadaa khaaskaa uu siiyo kadibna aakhare uu yidhaahdo cid kale aad maya allah tabaaraka wa tacaala siduu adduunka u jeclaado u hayay ayuu aakharana rabbi tabaaraka wa tacaala u asturayaa naxariistiisa u geynayaa cadaabka iyo wixii dhibaataa uga ilaalinaya rabbi tabaaraka wa tacaala taladiisa cid kale lagu wareejin maayo haddaba ilaahay wilaayadiisa maxaa lagu helaa waa arrin khaas waa arrin qaali ah waa arrin aad u sarraysa allah wilaayadiisa waxaa lagu helaa iimaan inaad iimaan saxa leedahay allahu waliyu aladiina aamanuu ilaahay wuxuu weli u yahay dadka mu'miniinta ah allah wilaayadiisa waxaa lagu helaa taacadiisa iyo camalka saalixa ah wuxuu jecel yahay inaad la timaado wuxuu necab yahayna ka fogaato wilaayada rabbi taasaa lagu helaa tabaaraka wa tacaala wilaayadaasna dadka mu'miniinta ah ee dadaalayay waa ku kala sarreeyaan ninba qadarka uu iimaanka ka haysto qadarka camalka saalixa uu ka samaynayo yuu ilaahay wilaayadiisana ka helayaa saas daraaddeed bay dadku kala tegayaan oo darajaad kala noqonayaan oo jannadii qaybsan tahay oo adduunka maraatib ay ku yihiin camal saalixa iyo alla ka cabsigaasaa lagu kala tegaya wilaayada rabbina tabaaraka wa tacaala qadarkaasay ku imaanaysaa rususha ilaahay ambiyada sidiiqiinta saalixiinta culimada cubaadda zuhaadda nin walba qadarka camalkiisa iyo iimaankiisu dhan yahay baa wilaayada rabbi tabaaraka wa tacaala qaybteeda ka helaya ilaahay ciduu weli u noqday aakhare cid kale ku wareejin maayo qodobka saddexaad ee nabigeenu ku dhaartay waxa weeye salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruux dad ma jeclaado ilaa iyagu la mid noqdo iyagoo kalaa laga dhigaa iyaga la jirankoodaa la yeelaa taana waa qaacido weyn haddaad isweydiinayso talow aakharo yaad la meel noqon doontaa yaa lagula soo kulmin doonaa yaa lagu raacin doonaa yaad la koox noqon doontaa jawaabteedu waxa weeyaan qalbigaagaad dib ugu noqonaysa yaad jeceshahay yaad u hiilisaa yaad la jirtaa yaad garab taagan tahay yaad ka mid tahay adduunyada markaad joogto cidda aad jeceshahood qalbigaaga ka jeceshahay ayaa maalinta qiyaamadana la meel tahay ninkii gaal jecel gaal buu la meel yahay ninkii fujaarta iyo cusaada jecelna iyagu la meel yahay ninkii saalixiinta iyo ahluliimaanka iyo dadka wanaagsan jecelna iyagu la meel yahay dadka aad jeceshahay baad bari la meel tahay warku waa cadi nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin baa u yimid reebaadiye ah acraabi ah markaasaa wuxuu rasuulka ilaahay qiyaamadu waa goorma saacaddu waa goorma saacadda kama jawaabi karo waa goorma nabigu kama jawaabi karo salawaatu rabbi wasalaamu calayh walaa malakul jibriil baan ka jawaabi karin waa cilmi ilaahay khaas leeyahay markaasuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh su-aashiisii wuxuu kaga jawaabay su-aal buu isagii ku celiyey wuxuu yidhi maxaad u diyaarsatay yaa qiyaamadu ama berri ha noqoto ama ha dib dhacdo ama ha soo hormarto way imaani qasab inay imaanaysana shaki kuma jiro goormay imaanaysaa waxaa ka muhiimsan inaad isweydiiso maxaa kuu diyaarsan adiga way imaanay maxaad diyaarsatay markaasuu wuxuu yidhi rasuul ilaahayow salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan iima diyaarsana laakiin ilaah iyo rasuulkiisaan jeclahay nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kuwaad jeceshahay baad la meel tahay baa layidhi nin kale u yimid nabiga sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu ku yidhi rasuul ilaahayow ruux baa dad jecel
ma se gaadhi karo waa jecel yahay khayr iyo wanaag iyo taacada iyo waxay hayaan buu ku jecel yahay laakiin waxay samaynayaan oo kale ma samayn karo waa ka sokeeya ma gaadhi karo markaasuu nabigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam almar'u maca man axab ruuxu dadka uu jecel yahay buu la meel yahay warkaasi war cad wey marka adaa garanaya marka meeshaad isgeyn lahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu la tacaamulayaa aadamaha iyo makhluuqu waxay la mucaamaloonayaan wixii lagugu arko xubnahaaga ka muuqda camalkaaga ka muuqda carabkaaga ka soo baxa ayaa lagugula dhaqmaa khalqigu intaa ka badan ma ogaan karaan laakiin rabbi tabaaraka wa tacaala asagu wuxuu kaala mucaamaloonayaa qalbiga maxaad jeceshahay maxaa qalbigaaga ku jira maxaad rabtaa xaggeed u socotaa maxaad damacsan tahay maxaad go'aansatay allah qalbigu kaala mucaamaloonaya sida nabigeennuba yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsaamikum walakin yanduru ila quluubikum wa acmaalikum allah tabaaraka wa tacaala qalbigaaga waa inaad tusto inaad isaga jeceshahay waladiina aamanuu ashaddu xubban lilah inaad rusushiisa jeceshahay inaad nebi maxamed jeceshahay inaad saxaabadiisii iyo akhyaartii ardadiisa ahay jeceshahay inaad saalixiinta iyo dadka wanaagsan iyo culimmada iyo dadka diinta u adeega jeceshahay inaad dadka saalixiinta jeceshahay allah qalbigaaga ha ka arko taasaa abaalkaaga iyo meeshaad tegayso noqonaysa kuwaasaa yaa maalinta qiyaamada lagula soo saarayaa iyagaasaad la meel noqonaysaa iyagaasaad meel la tegaysaa haddaad meel kale u leexatana adaa yaqaana meeshaad tegayso howlkuu taallo waay marka nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxu dad ma jeclaado ilaa ilaahay iyaga la jirankooduu yeelaa qodob afraad buu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo wuxuu yidhi arrin afraad haddaan ku dhaartana waxaan rajaynayaa inaanan dembaabaynin maxay tahay wuxuu nebigu yuri sal alla alay wasalam ilaahay adduunka addoon ma asturo ya ilaa aakharana waa asturaa waxaa laga hadlayaa rabbi tabaaraka wa tacaala dunuubtan aan gelayno habeen iyo maalinba xilli walba imisaan wax qasaynaa imisaan wax kharibaynaa imisaan ilaahay caasinaynaa imisaan si qarsoon waxyaala aan fiicnayn samaynaynaa haddana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagoo ina og buu haddana ina asturayaa haddaan ilaahay asturkiisa aadan ku jirin waxaad samaysood qarsoodi ku samaysaba bannaankaa la keeni lahaa markaasaad fadeexoobi lahayd laakiin rabbi baana asturay asturkaa rabbi ku asturay tabaaraka wa tacaala haddiiba rabbi ku asturo adduunka aakharana rabbi waa ku asturaya tabaaraka wa tacaala oo xadiidka nebiga waxaa ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxa mu'minka ah rabbi tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada ee saalixee wanaagsan alla tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada ah marka laysu yimaado dadka qaarna waxaa lagu xisaabiyaa khalqiga hortooda markaasaa la fadeexeeyaa dadka qaarkoodna ilaahay kanafkiisuu geliyaa astur buu geliyaa meel qarsoodi ah markaasaa dunuubtoodii iyo khaladaadkoodii iyo ceebahoodii lasoo hordhigaa addoonkaygiioo khaladkaa ma gashay haa rabbiyow dembigaa ma samaysay haa rabbiyow sidaa wax ma u gashay haa rabbiyow markuu qirto rabbi keligii waay cid kaloo la joogto ma leh cid kaloo daalacanaysana ma jiro waa la asturayaa mar uu qirtay dembiyadii oo dhan oo isleeyahay naartaa lagu taxaabi doonaa waa kuu dhammaatay ayuu rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala adduunkana anaa kaa asturo kuma fadeexaynin haddana waan kuu dhaafay jannada aad baa la leeyahay ilaahay fadligiisa tabaaraka wa tacaala iyo karamkiisa iyo deeqdiisa wax la koobi kara ma aha adduun iyo aakharaba korkeenna rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku leeyahay sidaas daraaddeed in rabbi ku asturo adduunka waxay macnaheedu tahay aakharana inuu rabbi ku asturi tabaaraka wa tacaala asturka rabbina iyadana waxaa lagu helaa inaad dadaasho oo aad ceebtaada hadday kaa dhacda aad toobad keentood ilaahay u soo noqoto ceebtaadana aadan bannaanka ula imaaninoo khaladaadkaaga haddaad bannaanka ula soo baxdo sariigtu kaa tagto xishoodku kaa tagood bannaanka dhigato taasi meesha kuma jirto marka adaa isfadeexeeyey nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullu ummatii mucaafa ila almujaahiruun ummaddaydoo dhan waa kuwa la cafinayo la saamaxayo la asturayo ilaa kuwa dembiyada bannaanka soo dhigtay mooye waa kee
habeenkiibuu khalad galaya rabbi baa asturay markaasuu subaxdii imaanaya waa ku sheekaynaya ma maqashay war xalay waxaas iyo waxaasan ka dulbooday xalay waxaas iyo waxaasan sameeyay xalay waxaas iyo waxaasan ku kacay allah waa asturaya isaguna waa isfadeexaynaya ka ilaahay tabaaraka wa tacaala asturi maayo maxaa isaga marada iska dhigay asturka rabbi tabaaraka wa tacaala waxyaalahaad ku heli karta waxaa ka mid ah man satara musliman fi dunya satarahu allah fi dunya wal aakhirah ruux muslima ceebtiisa astura khaladkiisa intuu ogaado u asturo oo aan faafinin oo aan baahinin wuxuu ku helayaa inuu isagana ilaahay asturo tabaaraka wa tacaala adduunyo aakhiraba ceebtiisa in la asturo sidaas daraaddeed haddiiba rabbi ku asturay waa nicmo weyn oo shukri u baahan allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu ceebaheenna asturo noo dembi dhaafo rabbi tabaaraka wa tacaala نبيينتا يا صديقينتا يا شهداء يا صالحين إلهي نلا صو حشريه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصادري أدونك ددبي أولياؤيهين آخر مركي تغانا إسلائيجي بي أولياؤيه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أدونك أنك أولياء إذين أهين آخرنا أنك إذين لتشبنوا الله تبارك وتعالى مدعكرت أدونك سئنو أدونك كتش على هذا وولاية خاص كأوصيه كذبنا آخره إلى عدك لآد مايا الله تبارك وتعالى سيدو أدونك كتش على هذا أهيي أيو آخرنا الرب تبارك وتعالى أستريا نحريستيسا ugeynaya cadaabka iyo wixii dhibaato uga ilaalinaya rabbi tabaaraka wa tacaala taladiisa cid kale lagu wareejin maayo hadaba ilaahay wilaayadiisa maxaa lagu helaa waa arin khaas waa arin qaali ah waa arin aad u sarreysa allah wilaayadiisa waxa lagu helaa iimaan inaad iimaan sax leedahay allah waliyul ladina aamanu ilaahay wuxuu wali u yahay dadka mu'miniinta ah الله ولايديسا waxa lagu hela taacadiisa iyo amalka saalixa wuxuu jecel yahay in Allah timaado wuxuu nacib yahay ka fogaato wilaayada rabbi taasa lagu hela tabaaraka wa tacaala wilaayadaasna dadka mu'miniinta ah ee dadaalayay waa ku kala sareeyaan ninba qadarka uu iimaanka ka haysto qadarka amalka saalixa uu ka sameeynayo yu ilaahi wilaayadiisana ka helaya saas daraadeed bay dadku kala tagayaan oo darajaad kala noqonayaan oo jannadii qaybsan tahay oo adduunka maraatib ay ku yihiin amal saalixa iyo alla ka cabsigaas lagu kala tagaya wilaayada rabbina tabaaraka wa tacaala qadarkaas ay ku iimaanaysa rususha ilaahay anbiyada siddiqiinta saalixiinta culimada ubaada zuhada nin walba qadarka amalkiisa iyo iimaankiisu dhan yahay ba wilaayada rabbi tabaaraka wa tacaala qaybteeda ka helaya ilaahay cidu wali u noqday aakhira cid kale ku wareejin maayo qodobka saddexaad ee nabigeenu ku dhaartay waxa weeye salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruux dad ma jeclaado ilaa iyagu la mid noqdo iyagoo kala laga dhigaa iyaga la jirankooda la yeelaa taana waa qaacido weyn haddaad isweydiinayso talow aakharo yaad la meel noqon doontaa yaa lagula soo kulmin doonaa yaa lagu raacin doonaa yaad la koox noqon doontaa jawaabteedu waxa weeyaan qalbigaaga dib ugu noqonaysa yaa jeceshahay yaad u hiilisaa yaad la jirtaa yaad garab taagan tahay yaad ka mid tahay adduunyada markaad joogto cidda aad jecsaarod cadaaladda rabbi baa diiday ruux islaamka dhexdiisa saami ku leh oo dadaalay oo khayr iyo wanaag la yimid iyo midaan islaamka dhexdiisa saami ku lahayn ilaahay simi maayo taasina cadaaladday ka fog tahay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin warma muslimiinta iyo mujrimiintaanu isku mid ka dhigaynaa
maa lakum kayfa taxkumuuna seed wax u xukumaysaan xukunkiinnu see u yaallaa ma labadaasaa la simi karaa oo isku mid laga dhigi karaa jawaabtu waa maya allah tabaaraka wa tacaala islaamka dhexdiisa yaa saami ku leh oo karaamo iyo qiimo ku leh waa ruuxa waajibaadka shareecada hagaajiya sheegadka ma aha islaamnimada uun iska sheegta laa yusallii walaa yasuumu walaa yuzakii walaa yu'addi alwaajibaat soomi maayo salaad isma yaqaanaan sako xoolihiisa kama bixiyo kaasi islaamka dhexdiisa wax saamiya kuma laha isaga iyo ruuxii intaaba hagaajiyoo salaadiisa hagaajiyey oo bishiisa ramadaan si saaniyoo fiican u soomay oo xoolihiisa sakada waajibka ka bixiyey sidaa daraaddeedna islaamka dhexdiisa saami qiimo leh ku leh isaga iyo kaas kale ilaahay marna simi maayo isku midna ka dhig maayo rabbi tabaaraka wa tacaala cid saami leh saamigiisuu leeyahy ninkii aan saami lahayn oon soo shaqaysanina rabbi tabaaraka wa tacaala waxba siin maayo maxaa yeelay muusan soo beeranin mana soo shaqaysanin islaamku marka waa camal waa caqiidiya camal wada socdo wey ma aha keliyata wax lagu abtirsado uun waan ku dhashay waana ku abtirsadaa muslim baan ahay bas maya islaamku waa caqiido wax la rumeeyo iyo camal iyo dhaqan wada socdo wey laysa aliimaanu biاltamani wala biاltaxalli walakin ma waqara fi اlqalbi wasadaqahu اlcamal waa qalbiga iyo xubnihii iyo dhaqankii iyo noloshaadii inay ilaahay awaamirtiisa qaadato wixii lagaa reebeen aad ka hadho markaasaad islaamka dhexdiisa saami ku leedahay haddii kale waxba ma lihid taa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ku dhaartay qodobka labaadii waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala hadduu ku jeclaado adduunka dhexdiisa taladaada iyo arrintaadana asagu qabto garab kuu noqdo iyo hiilo kuu noqdo aakhare markaad tagto cid kale kugu wareejin maayo isagii adduunka weliga kuu ahaa ayaa aakharana weli kuu ah wakadalika malaa'ikatuhu allah tabaaraka wa tacaala malaa'igtiisa الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله نبينا صلوات ربي وسلام عليه يا وحو ليهي صدح الرمود أيام كل دارن بنبي صلى الله عليه وسلم صدح الرمود وان كل دارن أيام بمعنى والله با شكنكم أتشروا أرنت كوبادي وحو النبي صلى الله عليه وسلم عد إسلام كدحديس سامي كله إلهي كدق مايو سيدي كوا أن سامي لهينو كله لصمي مايو كوا أن إسلام كدحديس سامي كلهين إسلام كسامي يدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصدح والصلاة هي الصونك هي الزكاة قضب كاللواد النبي صلى الله عليه وسلم وحوي الله تبارك وتعالى أدون مديسة كمدة أدون مدى أدون كدحديسة ولايديسة مصيو jacaylkiisa iyo hiiladiisa iyo garab istaaggiisa ma siiyo ilaa hadduu siiyo uu arrintaa helo adduunka uu ku helo addoonku aakhare ilaahay cid kale u xil saari maayo cid kale taladiisa u dhiibi maayo isagaa gacanta ku haynaya qodobka saddexaad ee nabigeennu ku dhaartay waxa weeye salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruux dad ma jeclaado إلا الله وحو يلا تبارك وتعالى دتك على جيرانكود مد أفراد ونبي كودر صلى الله عليه وسلم وحو يلي أرين أفرادنا هدان كودارته وحن رجينا يا إنا نندم بابين وحو يلي أضون إلهي أدونك ما أسطره إلا هدو أدونك كو أسطره آخرا وكو أسطره أفر أرمضو آدو قيمة بضوين الله عدالة ديس waxay keenaysaa
روح والبا عقيدة ديسي عمل كيسي وحو أها إن لغو أبا المريو الله تبارك وتعالى دتك السمي مايو كي حمائي كيف عنا إن هل لبك فدود السمن لوضص عشهد قلبي قاقا كتش عشهاي أيام ما ننت قيامتنا اللميل تهي ننكي قال شعل قال بو لميليه ننكي فجارتا يا عصادة شعلنا أيقو لميليه ننكي صالحين تي أهل الإيمان كي يددك ونكسن شعلنا أيقو لميليه ددك عشهاي بعد بريد لميل تهي وركو وعديه نبي قالنا صلوات ربي والسلام عليه نمبا ويمد ريباديه أعرابيه مركز أوحي الرسول كإلهي وقيامه دوا قورمه ساعد دوا قورمه ساعد كما جوابي كروا قورمه نبي كما جوابي كروا صلوات ربي والسلام عليه ولا ملك الجبريل بان كجوابي كريم وعلم إلهي خاص ليه مركز النبي صلوات ربي والسلام عليه سؤال شيء وحو كجا جوابي سؤال بيسقي عليه وحو يدي ما حد ديار صت يا قيامه أما بريها النقط أما هدبنا على ما صهر مرت وإيماني قصب إن إيماني سنة شك كمتشرو قرمي إيماني سواحة كم مهم سنين أزويدي سمحا كود ديار سنة ديك وإيماني محاد ديار ست مركز وحي الرسول إلهي صلاة بدن إيه الصوم بدن إيه الصدقة بدن إيماد ديار سنة لكن إلهي الرسول كيسان شعله النبي قحول صلوات ربي والسلام عليه كوات شعش هيبا الله ميلتا هيبا ليه نينك لا أويمد النبي صلى الله عليه وسلم مركز يقول رسول الله يو روح بعد تشعل مسك قاعد كرو وتشعليه خير يوناك يطاعد يوحي يا بكوش علي لكن وحي السمين يانا وكلام ما السمين كرو وكسكيا ما قاعد كرو مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب روح ضدك وتشعليه هي بولا ميلي هي مركز ورعد ويمرك هذا قرنا يا مركب ايش تسقين له الله تبارك وتعالى وحو لا تعامليا آدمها إيا مخلوق وحي لا معاملون يا وحي لغوغو أركو حبنها كم موقضة عملكاga كم موقضة عربكاga كصوبعة أيا لغوغو لا رقما خلقه انت كبدا ما أوغان كران لكن ربي تبارك وتعالى أساقو وحو كالا معاملون يا قلبك محاد تعشهي محاد قلبكاga كجرة محاد ربطها حقيت الصعوتها محاد دمعسنتهي محاد قوانستي الله قلبي كالا معاملونيه سيد النبي قال نبي صلوات ربي والسلام عليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله تبارك وتعالى قلبي قاقة وإن تسطه إن تسقى والذين آمنوا أشد حبا لله إن رسوشي ستعش إن النبي محمد تعش إن الصحابة دي سي أخيارتي أرددي سهي تعش إن الصالحين تأيدتك ونناكسين يا علماء يدتك الدين تو أديك تعش إن أدتك صالحين تعشه الله قلبي قاقها كأركو تاسا أبال كاقي ميشا تقيس النقونيس كواسا يا ماني قيامة لغو لصو صار يا إيقاسا الله ميل نقونيسا إيقاسا ميل لتقيسا هداد ميل كلا أولي حتى أدا يقانا ميشا تقيسو هول كوت الله مركا النبي قول صلوات ربي والسلام عليه روح ضد ما تشعلاده إلا إلهي إيجا لتشيرن كودو يلا قضب أفراد والنبي قدر صلوات ربي والسلام عليه ووحو يرمد أفراد أرين أفراد هدان كل دارتنا وحن رجينا إنا نندم بابين معي تاي وحو النبي صلى الله عليه وسلم إلهي أدونك أدون ما أسطره يا إلا آخرنا وأسطره حلقها الله يا ربي تبارك وتعالى ذنوبتنا أنقلين هبين يا مالين با حل والبا إمسان وح قصينا إمسان وح خربينا إمسان إلهي عاصينا إمسان سقر صون وحيالا أن في عينين صمينينا هذانا إلهي تبارك وتعالى إسقو إنه أق وهذانا إنه أسطوريا هذا إلهي أسطور كيسا آدم كتشرين waxaad samaysood qarsoodi ku samaysaba banaanka la keeni laha markaasaad fadeexoobi lahayd laakiin rabbi baana asturay asturka rabbi ku asturay tabaaraka wa taala hadiba rabbi ku asturo adduunka aakharana rabbi waa ku asturaya tabaaraka wa taala oo xadiidka nabiga waxa ku sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ruuxa mu'minka ah
rabbi tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada ee saalix ee wanaagsan alla tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada marka la isu yimaado dadka qaarna waxa lagu xisaabiyaa khalqiga hortooda markaas la fadeexeeyaa dadka qaarkoodna ilaahay kanafkiisu geliya astur buu geliya meel qarsoodi ah markaas dunuubtoodii khaladaadkoodii ceebahoodii la soo hordhigaa adoonkaygi oo khaladka ma gashay ha rabbiyo dambiga ma samaysay ha rabbiyo sida wax ma u gashay ha rabbiyo markuu qirto rabbi keligii waa cid kale oo la joogto male cid kale oo daalacaneysana ma jiro wala asturayaa mar uu qirtay dambiyadii oo dhan oo isleeyahay naarta lagu taxaabi doona waa ku dhamaatay ayuu rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala adduunkana ana ka asturo kuma fadeexaynin haddana waan ku dhaafay jannada aad baa la leeyahay ilaahay fadligiisa tabaaraka wa tacaala iyo karamkiisa iyo deeqdiisa wax la